عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا عشر كاني سدحاد halkan data types and the formatting and sameynaa macnaha noocyada macluumaadka lagu qori karo Excel iyo qaabka la format gareeyo yaan doonaya inaan marka dulmaro. xaggan waxaa igu qoran magacyo iyo sanadaha ay jiraan, taariikhdii, saacaddii, lacag baa halkan ku qoran, halkanna percentage intaas ku qoran. marka intaasba mid kasta waa data type nooc ah oo waxa weeyaan ka duwan kan kale meesha ka jiro, because kan date haddii ay noqoto ama taariikh ay noqoto waa nooc gaara oo xog ah, tanna sidoo kale. marka mid kasta qaabka loo format gareeyaan doonaya inaan wax yar dul istaago. marka hore waxaan sameysanayaa sida caadiga anigu waxaan sameeyaa marka xaggan fiiri headers ama headings uu tableka ii leeyahay. xaggan magacyada igu qoran korkeeda waxaa igu qoran names, column heading baan iska samaystay. marka kuwaas waxaan sameeyaa waana sida loo baahay inaad sameyso, saad u highlight gareynaysaa. markaad hadlay gareyso waxoogaa bold ka dhigo oo qadda ku badi, haddana waxoogaa balweyne waxoogaa intaas camal ka dhig. waxaad gelisaa color geli oo color iska caadi ah geli. colorkaas aan gashto. markaan geliyo kadib halkan fiir waxyar way ka dhex baxday, dhinacan ay u gudubtay qoraalkan, dhinacan u gudbay, waad aragtaa wuxuu u gudbay godkan kale. sidaas oo kale markay sidaas noqotay ku qabsato waxaa sameynaysaa halkana qalin geynaysa. qalinka meeshaan aan geeyay fiiri geeska godka uu ku qoran yahay magaca halka ku dhamaanaya xagga sare ah ayaad qalin geynaysaa. balaas madow markuu sidaa u noqdo double click baad double click markaad hada caadi meesha buuxinaya oo la ekaanaya. okay waxaa kaloo sameyn kartaa inaad gashato bold. intaad kulli sidaa u highlight gareyso halkan aad qabanaysaa, waad highlight gareyn, mooska ku highlight gareynaysaa. kadib waxaad gashanaysaa borders, halkan aad ka gelinaysaa borders, halkan aad qodaysaa ama halkan aad qodaysaa. labada dhinac baad sameyn kartaa, haddaa halkaa qodo iyo haddaad halkan qodo. kadib halkan borders sii aado, haddana halkan aad ka geliso waad sameyn kartaa. laakiin intaas kuguma dhibayo. waxaa sameynaysaa intan yar iska qodo, meeshaad markaa qodo kan ku dhufo markaa all borders. okay all borders ku dhibo dhammaantooda border lamankaas sidaas u gelinaya. hadda marka wax quruxsan bay noqdeen oo kan nidaam bay noqdeen. leemanka aad gelinayso waad bedeli kartaa, noocaad doontaad aad u bedeli kartaa. halkan inta dhinaad ka tegaysa adigu borders aad tegaysa border markaad tegtid. leemanka tusaale ahaan hadda kana igu jira, kana weyn oo kale aan gelin karaa, kaa weyn oo waxoogaa ka yar weyn kan. then markaa kadib waxaan sameynayaa inside border waan sidaa u gelinayaa, and then xagga sarena qalinkan caadi ugu dhufanaya geeskaas iyo geeska. okay qaabkaas waa weynkaas u gelinaya. marka nooca border aad gelin karta lambarka intuu la dhan yahay. hadduu mid yar aad gashan rabto mid weyn halkan aad kasoo gashanaysaa, ama maxay ahayd meesha doontaad ka gashani kartaa oo mid weyn iyo mid yar. hadda kuwa yaryara ku jiro. intaan tegayaa halkan aan tegi karaa all borders, and then then leebanka xogo haddaan rabo kanoo kale aan gashanaya. okay kanoo kale aan gashanaya oo iska khafiif ah. okay noocaas u noqonaya, nooca quruxda badan u noqonaya. okay marka nooca doonta adigu nooca doontaad gashan kartaa, laakiin kan caanka waa kan leenkan weeyaan. leenka caadiga ee tooska ah aan saa usii weyneyn kana inta badan la geliyaa, oo marka kaasaa la geliyaa asxaabta bab okay marka ceenkaasu ii noqonaya. markuu sidaa noqdo formatting waxaa la sameynaa magacyada xaggooda wax formatting aan ku sameynin mala ayagoo iska caadi. kanan xogaa kan markaan saas highlight gareyna dhexdan geynayaa, dhexdan geynayn halkaa ku hagaago. excel cashirkii hore waxaan kusoo qaadanay in macnaha wixii lambar dhinaca midigta uu ku dhejinayo. hadda kan oo kale kan waa age, waxaan ka bedelayna malaha. waxaan ka bedelayna oo kaliya xaggana general lambar caadi aan ka dhigayna. excel hadda lambar ahaan uma fahansan, wax general caadi u fahansan yahay. marka waxaan sameynaynaa aan highlight gareynayna qaabkaas. markaan u highlight gareyn intaan taabanaya halkan aan qodaya
markaan qodo boxkana iisoo baxay waxaan dhahayaa number aan dhahayaa decimalka haddaan twoda iyadoo halkaa ku qoran decimal bay halkaa ku qoran haddaan okay dhaho decimal uu yeelaya marka laakiin waa qalad waayo sanad oo la dhahayo 24 dhibic eber xal ma jiraan marka waa inaan decimalka ka bixiyo waxaan sameynayaa decimalkan halkan aan qodayaa eberan ka dhigaa decimalka okay aan leeyahay diyaar waa marka lambar caadi hadda iyo halkaas oo kale lambar kusoo qormo okay perfect xaggan haddana xaggan taariikhda dateska markaad fiiriso waxaa waaye wax micno sameynaya ma aha tirooyin badan ma iska qoran oo lacag iyo waxaas aad moodo marka waa inaad ka bedeshaa excel markuu sidan oo kale u qoran yahay aad aragto dateka ama taariikhda sidan oo kale u qorayo micnaheedu waxaa waaye wuxuu qorayaa inta maalmooda kasoo wareegtay laga soo bilaabo kowda bishii koowaad 1990 iyo 1900 micnaha bishii koowaad January January 1st 1900 inta maalmooda kasoo wareegtay waa halkaa ku qoraya qaabkaas hadda uu qoran yahay marka adiga macno kuma sameynayso waa inaad bedeshaa marka formattingka waa inaad hagaajisaa formatka hadda uu ku jiro wax micno ku sameynaya maaha marka waxaa sameynaysaa highlight aad leedahay highlight markaan dhaho right click intaan qodayaa right click maaha halkan aan qodayaa left click waayo halkan aan qodi markaan qodo waa boxka numberka ku qorayaa number wax alaala wixii number la xiriira boxkan la dhahayo number groupka aad kaga adeeganaysaa marka halkan waxaan imaanayaa halkan waa taariikh date waaye marka halkan inta nooc oo macluumaada meesha lagu qori karaa ama xog sida lagu qori karaa meesha halkan kugu yaalo haddii uu number yahay haddii currency yahay lacaga accounting date wixii dhan anaga marka date baan rabnaa waa taariikh halkaasaan taabanaya halkaa markaan taabto taariikhda aniga waxaan isticmaalayaa english not ayaa english dates aan iska isticmaalaya dadkiina america jooga meelahaas ka raala okay marka intana noocu ku siinaya oo taariikh ah taariikhda marka qaabkan aad qori kartaa waxaad leedahay bishii 3aad 14keeda 2012 oo kale sanadka ku xiga ama waxaa ilaa ayaantii wadanaya wuxuu leeyahay kana ilaa ayaantii bishii magaceeda taariikhdii maalinta ay tahay iyo sanadkii wax ka haray ma wala mar sidana kala loo qori intaas oo nooca loo qori adigu mid rabtid ka dooro xaggana waxaa waaye dalalka ma aragtay caalamka qaaradaha midba si bay u qortaan marka hadda halkan English Philippine English Singapore waxyaaba ku qoran mid ka soo dooranaysa aniga laakiin waxaan qaatay English waxaan rabaa kale English dates baan qaadanaya oo Americana English dates oo United States baan qaadanaya marka okay taa hadda iska qaato no really waxaan rabaa inaan qaato okay no okay English United Kingdom waan iska qaadanaya English date oo United Kingdom aan qaadanaya then noocaan rabo marka waxaa waaye tanaan qaadanaya taariikhda soo hormar bisha ku xigta sanadka ku xigo taasaan qaadanaya okay aan leeyahay qaabkaas ay noqonaysaa marka ka 6dii bishii 8aad 2010 okay adigu nooca doonto oo ku anfac ka qaada halkii meesha halka aan hadda kasoo dooranay kasoo dooro hadee perfect okay waxaan imaanaynaa saacadda haddaad fiiriso 0 dhadhac micno ma sameynayso saacad sidan u qoran ma jirto time serial la dhahaa markay sidan u qoranta time serialka marka waxaa waaye nama anfacaysa anaga hadda inaan bedelnaa waxaan sameynaynaa sidoo kale highlight aan leenahay highlight markaan dhahno halkan aan tegaynaa halkaa markaan tago waxaan dhahayaa time okay time markaan dhaho halkan waxaa iiga dooran English time aan iska qoranayaa 40 nooc bay leedahay waa saacaddii daqiiqadii iyo ilbiriqsigii ee qoraysaa qaar PM bay ku darayaan qaarna kuma darayaan marka tan waxaan qaadanayaa saacaddii
24 xataa way leedahay 12 oo clock system labaduba way leedahay waa aragta 24 saddex iyo toban aad arkaysa halkaa marka waxaa waaye saacadaha waxaa waaye 24 hour system iyo 12 hour system labadaba waad ka helaysaa marka ana hadda waxaan rabaa inaan qaato tan aan iska qaadanayaa oo saacaddii daqiiqadihii iyo ilbiriqsida leh aan iska qaadanayaa noocaas iska qoraya marka am weeyaan ka qaabkaas uu qoray waa 10 saac 30 daqiiqo 20 ilbiriqsi camal taas uu qoraya okay haddaan rabo ka bedelayaa waxaan iska qaadanayaa mid saacaddii daqiiqadaha bis iyo tusinaysa wax kale maba rabo saacaddii iyo daqiiqadaha bis ayaan rabaa maba labaha englishka hadday noqoto waa inaan bedelnaa markaas aan qaadanaa american states kaan fiirinaya english oo united states aan fiirinaya kan baa fursado badan leh oo ah saacaddii iyo daqiiqadihii iyo b m kii iyo kaasaan ka dhigana tanaa saxaya tanaan qaadanaya markaa daba iyo hagaagsan tan baan ka helay waxaa waaye saacaddina way tusinaysaa daqiiqadina way tusinaysaa am iyo b m mudday tahayna way ii sheegaysaa perfect xaggan lacagaa ku qoran money lacag weeyaan laakiin lacag inay tahay in kale lama fahmi karo oo lambaro meesha ku qoran marka waa inaad lacag ka dhigtaa sidee looga dhigayaa highlight aad dhehaysaa waad highlight garaynaysaa waad format garaynaysaa money ahaan aad format garaynaysaa intaad imaanaysaa currency baad ka dhigaysaa currency-ga aan raba aniga halkan aan ka dooranayo dollar miya shilling miya midku raba halkan aan ka dooranaya aniga dollarkaasaan qaadanaya calaamadaas dollarka ayaan qaadanaya labadaa decimal place-na u daynaya calaamadaasaan qaadanaya calaamadaas markaan qaato labada decimal place-na waan u daynaya ilaan lacagtaydi waa aragtaa decimal place ay leedahay macnaha dhibicda lambarra ka dambeeya marka okay aan leeyahay aka way ku dhawaanaysaa calaamadii dollarkana way ka hormarinaysaa waa ka okay xaggan percentage-ka imaa percentage-ka waa halkan wuxuu u qoran yahay percentage sidiisaba inta badan waxaa waaye waa jajab marka jajab ahaana loo qorayaa eber dhibic 5 eber 7 saasaa loo qoraa percentage haddii aad rabto marka inaad u bedesho percentage waxaad leedahay waa highlight garaynaysaa markaad highlight garayso intaad click leedahay percentage waatan halkan ku jirto halkaas aad tuujinaysaa markaad tuujiso decimal place waa ka jaraysaa marita decimal place ya labada decimal place ever ka dhigaysaa meeshaas xagana percentage ku taabsan halkan aad okay leedahay qaabkaas ku noqonayo okay ku noqonayo 50% 70% markaad table micno sameynay macluumaadkii hadda iyo xog micno sameynaysa ay noqotay okay meeshii sanada waa iska caadi taariikhdii suqumaatiya timekii waqtigii muxuu ahaa lacagtii sidoo kale percentage waa quruxdaasi ku noqonaysa ya marka qaabkaas loo format gareeyaa macluumaadka kala duwan sida tirooyinka caadiga taariikhda saacadaha iyo lacagta iyo percentage waxyaabahaas kale qaabkan ayaa loo format gareeyaa marka cashirka halkaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad ka heshay like saar boggeena waa mateg cashirka xigana la soco fadlan subscribe na assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu